waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran Muuse Sheekh Cumar oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ee 2022. munaasabad soo dhaweyn ah ayaa loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay waxgarad siyaasiyiin, haween iyo dhalinyaro. dadkii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa oo isugu jira waxgarad siyaasiyiin ee xubno ka tirsan xisbiga Daryeel Qaran oo ka hadlay munaasabada lagu soo dhaweynayay ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan musharax madaxweyne Muuse Sheekh Cumar iyo sida ay ugu faraxsan yihiin dib ugu soo laabashadiisa dalka. maanta xafladan qiimaha badan leh waxaan iskugu nimid soo dhaweynta xildhibaan Muuse Sheekh Cumar ahna madaxweyne musharax madaxweynaha mustaqbalka 2021 madaxweyne soo dhawow aad iyo aad bayn ugu faraxsanahay musharaxnimada mudane Muuse Sheekh Cumar. waxaan la filaynaa inuu gaarsiin doono dalka iyo martay dadka horumar muhiim ah. soo dhawowda madaxweyne ma sha Allah. gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran una taagan mas'uuliyadda ugu sarreysa Soomaaliya ee madaxweynimo Muuse Sheekh Cumar oo Soomaaliya aad looga yaqaan nin soo shaqeeyo dhalinyarana ah qaasatan baarlamaanka Soomaaliya ka soo shaqeeyay haddana dalka banaankiisa ka yimid hankiisuna yahay inuu Soomaaliya hogaamiyo jecelna inuu meelo badan oo dalka tago. waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawow. xisbiga Daryeel Qaran baan soo dhaweynaynaa. waxaana leeyahay soo dhawow ditoore ku soo dhawow magaalo madaxdii. waxaana kuuga hambalyeynayna inaad maanta Muqdisho nala joogto si buuxdaan kugu soo dhaweynaynaa. soo dhawow. waxaan aad u soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran mudane soo dhawow soo dhaweynayaa ilaahay hamigaaga ku aqbalo. waana loo baahan yahay ummadda in laga helo qof maxaan ku dhahaa dadka anfaco. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrun naasi anfa'uhum. dadka waxa u fiican u qeyr badan kan ayaka anfaco ayaa u qeyr badan. marka waxa weeyo kii dalkeeda dadka anfaca Allah ka dhigo, dambigeena Allah dhaafo, ceebaha naga Allah asturo, hamigaada oo qeyr Allah ku gaarsiiyo. odayaasha walaalkii Muuse soo dhaw dalkaaga way ku soo dhaw dad ku jecel hamigaagan waxaan kula Ilaahay ku gaarsiiyo insha Allah ku soo dhaweynayna. gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran Muuse Sheekh Cumar ayaa u mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa isagoo sheegay inuu sameyn doono kulamo iyo wada tashiye la xiriira masiirka dalka. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan jeclaan lahaa inaan idinkaga mahad celiyo sida wanaagsan oo aad maartay uga soo qayb gasheen xafladan qiimaha badan isla markaa ayadana maxaan ku raadayay aad maartay u soo ajibteen in maartay aad halkaan iyada casuumadan soo dhaweynteeda aad maartay aad ugu fidiseen. anigana waxaan rajaynayaa insha Allah taala in maartay doorka iga aadan hadii Soomaaliya maxaan ku raadayay masiirkeeda iyo kursigan aan u istaagay maartay madaxweynimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadii aan ku guuleysano in maartay aan la nimaano isbedel wanaagsan oo Soomaaliya maxaan ku raadayay la jaan qaada insha Allah taala. inta aan hadda joogana waxaan maxaan ku raadayay la kulmi doonaa saamilayda siyaasadda oo ay kamid yihiin xukuumadda maxaan ku raadayay madaxweynaha iyo maxaan ku raadayay madaxweynaashii hore iyo asxaabta siyaasadda dawlad goboleedyada iyo madaxdooda iyo dhammaan urqeybaha ururada bulshada. inta waa la kulmi doonaa tala isweydiin doonaa waxayna wadajir uga wada shaqeyn doonaan sidii Soomaaliya waddan sax ah oo dimuqraadi ah oo cadaalad ah oo horumar iyo midnimo keenta sidii looga wada shaqeyn lahaa. Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking. kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank